isbedel ayaa istiraada oo nolosha aad ku nooshaa wax ka bedel baa istiraada saas oo ay tahay mar walba aad ku dhaqaaqdid ama aad damacdid inaad wax samaysid waxa laga yaabaa inay burburto sida aad ratay aysan noqon ama waxa laga yaabaa riyooyin inaad leedahay riyooyinka ka burburaan ama waxyaabo badan oo isku xirxirtay inay dib u furfurmaan ay dhaqaaqi waayaan halkee wax ka qaldan yihiin waxa jirta wax la yiraahdo rabitaanka asaasiga ah iyo rabitaanka koritaanka haddii maanta adoon rabitaanka asaasiga dhisin aad ku boodid rabitaanka koritaanka ah qalbi jab waa la kulmaysaa murugo waa la kulmaysaa riyooyinkaagu inay burburaan waa la kulmaysaa wax walba oo markaa ku taaminaysid ama aad isleedahay sameyn waxa laga yaabaa inaad ka caajisid marka hore waa inaad dhistaa rabitaanka asaasiga ah intaad ku boodi lahayd rabitaanka koritaanka salaha koowaad aan ku siinaa waxay tahay adoo lug ku taagan haddaad damacdo inaad dhaqaaqdid waxaad la kulmaysaa inaad hore u turoturootid ama meesha aad taagan tahay aad habsatid ama aad ka dhaqaaqi weydid xitaa haddaa inta fikirto aad istiraadi maanta lug baa ku taagan tahay qof kale lug kale ku taagan raadi si aad horumar u sameysaan way idinku adkaanaysaa practical ahaan xataa waa u sameyn kartaa adoo qolkaaga ku jiro midigta ku istaago qof kale bidixda ku istaago bal inaad qolka ka bixi kartaan kama bixisaan way idinku adkaanaysaa adoo lug ku taagan ha ku fikirin in qof kale lug ku taagan aad macnaha dee nolosha isla wadaagtaan ama aad istiraadid waxbaa isbedelay marka hore waa inaad labada lugood ku istaagtaa haddaba sidee qofku labada lugood ugu istaagi kara labada lugood inaad ku istaagto waxaa kuu sahlaysa inaad dhisid baahiyahaaga asaasiga baahiyaha asaasiga maxaa ka mid ah baahiyaha asaasiga waxaa ka mid ah 3 qodob oo qodobo badan soo hoosgelayaan qodobka koowaad waxaa soo hoosgelaya 4 qodob 4 qodob waxa ay tahay kow waa inaad alle isku xirtaa cibaadada badisaa 2 waa inaad meelaha seexa karta heli kartaa hurdo kugu filan seexa kartaa 3 waa inaad cunno kugu filan oo nadiif ah cuni kartaa 4 waa inaad jimicsi samey kartaa marka aad qodobka koowaad ee rabitaanka asaasiga dhistid afartiisa waxa u gudbaysaa marka inaad dhistid qodobka labaad ee nabadda la yiraahdo nabad markii laga hadlayo badanaa qofku waxa u soo warmaysa dawlad laakiin nabad kala jirta oo ah shakhsiyadaada waa inaad nabad ku noolaan kartaa nabaduna waxa ay tahay wax walba inaad u fikirtid in dhanka wanaagsan loo wado wax walbana aadan u qaadan in shakhsiyadaada loo wado inaadan naftaada qofna la barbarsimin inaad adiga isku muuqatid qodobka labaad marka aad dhistid waxa ku imaanaysa qodobka saddexaad oo ah inaad markaasi haddii family noqon lahayd iyo haddii asxaab noqon lahayd iyo haddii dalxiis noqon lahayd inaad sameey kartid dalxiis markaad sameysid oo kale aad ka dhaqaaqi kartid meesha aad joogtid ama asxaab la kulmi kartid ama familka la kulmi kartid waxay ku sahlaysaa saddexdaasi inay ahaadaan saddexda asaasiga ah oo qofka marka horeba inuu soo dhiso saddexda marka aad dhisid waxa taa qof wajiga u furan yahay oo labadiisa lugood ku taagan marka asxaab wanaagsan haysatid markaad famil wanaagsan haysatid allana ku xiran tahay jirkaagana ka fikiraysid oo aad tahay waxyaabahaas oo dhan rabitaanka asaasiga waxa ku sahlanaysa asxaabta haday noqonayso iyo familka haday noqonaysaba in garab ay kugu siiyaan rabitaanka koritaanka haday noqonaysa mid maskaxiyan ah oo maskaxdaada ablaarinaysid iyo haday noqonaysa mid wax qabad ah laakiin si walba salaadaada u xun tahay asxaabta u xun yihiin familka u xun yihiin cunadaada iyo hurdadaada u xun tahay way adkaanaysaa rabitaanka koritaanka ah sida aad ugu boodid waana tan sababaysa mar walba inaad la noolaato qalbi jab iyo murugo iyo ciil rabitaanka koritaanka waxa kamid ah guurka oo kale waxa kamid ah shaqada oo kale waxa kamid ah magac oo kale waxa kamid ah maalka oo kale waxyaabahaas oo dhan waxay imaanayaan marka aad soo dhistid rabitaanka asaasiga ah rabitaanka marka aad asaasiga soo dhistine way ku sahlanaysaa markaas inaad u noolaatid sida adigu jeceshahay laakiin haddii rabitaanka asaasiga ay kamid tahay nabadda aysan ku dhisneen oo mar walba fikir la nooshahay qof walba safar bardhigaysid ama aad la nooshahay salaad la'aan ama aadan seexanaynin hurdo kugu filan way kugu adkaanaysaa waxaan u maleynayaa inaa intaas la fahantay